Therefore, I believe, not because I believe, but I am the president of Somali Democratic Republic. Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada janalkayga Emirates iyo taxanaheennii taariikhda Soomaaliya. Qabqablayaashii dagaal kuma aysan fakerin maxaa dhici doona. Qof walbo xamaasad qabiil iyo dhibaato ayaa uu ka cabanayay, balse maanta halka aan joogno Soomaali way ka wada daragsan tahay. welina cimri qaadasho umaanan yeelan. balse maxaa dhacay markii Maxamed Siyaad Barre oo isaga tagay dalkii Abriil 24 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in Soomaaliya loo diro 50 qof oo kor ka ilaaliya xabad joojinta la kala galay oo ay saxiixdeen qabqablayaasha markaasi ka ariminayay dalkeena. Siyaad Barre oo isaga baxay dalka September 19 1992 qabqablayaasha dagaalka ee Maxamed Faarax Caydiid oo ku laabtay Muqdisho isla mar ahaantaasna diiday in loo keeno ciidamo nabad ilaalinta. December 3 1992 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo hubeysan oo nabad ilaalin ah oo uu hogaaminayo Mareykanku. December 9 1992 ciidamada badda ee Mareykanka oo caga dhigtay xeebta Muqdisho ayagoo watay magacii ahaa howlgalkii rajo soo celinta. Janaayo 15 1993 wadahadal ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lagu qabtay Addis Ababa ayaa maleeshiyooyinkii isugu soo horjeeday Soomaaliya ay ku kala saxiixdeen heshiis ay ku joojinayaan dagaalka. heshiiskaas oo ka mid ahaa heshiisyo badan oo ay kala saxiixdeen. May 4 1993 Mareykanka ayaa hogaaminta ciidamada howlgalka ka waday Soomaaliya ku wareejiyay qaramada midoobay. balse maxaa dhacay 1993 wixii ka dambeeyay? waxaad kula socon doontaan barnaamijka xiga. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo amaane Allah.